gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa toddobaadkii u dambeeyay wuxuu booqasho ku joogay qaaradda Yurub isagoo soo maray wadamada ay ka mid yihiin wadanka Finland, Sweden iyo haatana ku sugan wadanka Britain magaalada London. Casho sharaf ayaa loogu sameeyay caawa magaalada London isagoo bari u ka xigtamay wadankii oo insha Allah taala ka degi doona magaalada Hargeysa marka saacada Hargeysa ay tahay galabnimada. Sidaa darteed waxaanu TV-ga Somsad ayaa kula kulmay galbeedka magaalada London weydiiyana waxyaabaha safarkiisa uu ku guuleystay iyo waxyaabaha uu socday safarkiisa gabahaanba xilliga uu ku sii wadankii hadaladiisana waxa kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan mahadnaqayaa telefishinka Somsat mas'uuliyiintiisa iyo wariyaashiisaba waxaan kaloo halka ka salaamayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland haday joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba halkan safar waa fasax baan ku yimi iyo shaqo labadaba ujeedadii markii hore halkan oo Yurub waxay ahayd inaan ka qayb galo shir caalami ah oo ku saabsan baarlamaanada barwaaqo sooranka iyo dalalka kale badankooda oo ka soo qayb galay shir caalami oo lagu qabanayay halkan London oo ay qabteen ururka barwaaqo sooranka ururka baarlamaanada barwaaqo sooranka shirkaas oo maanta bilaabmay oo aan bilowgiisii ka qayb galay waxaan kaloo intii aan joogay wadamada Yurub aan gaaray dalka Finland iyo Sweden waan kula kulmay halkaas jaaliyadaha reer Soomaaliland mas'uuliyiinta xukuumadaha wadamadaas iyo madaxda xisbiga wadani waxaan kaga qayb galay Sweden shirweynihii sanadeedkii xisbiga ku lahaa magaalada Stockholm maantana waxaan ka qayb galay furitaanka shirka caalamiga ah ee baarlamaanada dalalka barwaaqo sooranka ku bahoobay oo lagu casuumay Jamhuuriyadda Soomaaliland shirkaas iyo hawl laga baahday wadankii waxaan u dhoofi doonaa dalkii Britain hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah waxaan ku beeganahay magaalada Hargeysa dalkii Soomaaliland arbacada subaxdii 8 iyo barka hadii Ilaahay ka dhigo waxaan u mahadnaqayaa mar labaad shirka oo socon doona shirka baarlamaanada oo socon doona ilaa iyo Khamiista waxa ka qayb gali doona oo si delegateska Soomaaliland noqon doona mudane Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde iyo mudane Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo si dhameystiri doona inta ka harsan shirka maanta waxa la kulmay oo kale mas'uuliyiin ama madax ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Ingiriiska oo guud ahaan uga warramay xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha Soomaaliland intaba mar labaad ma hadnaqayaa telefishinka Somsat insha Allah waxaan bakabraya inuu nabad qab ugu gaarsiiyo dalkayga hooyo si kastaba haatee gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxaad moodaan uu shaqo weyn ka qabtay intii uu baqashada ku joogay qaaradda Yurub iminkana uu ku sii socdo wadankii iyadoo halkaas inay hawlo badan ay sugayaan oo dhinaca golaha wakiilada uu gudoomiyaha yahay Axmed Cawl Ismaaciil Somsat TV London